السلام عليكم إتسام الليلة وأدين سلامي إن ما أنتم حان إذين وذا قبر عن آذ أفعنين نيوز bad news سيدرونتا لكن وإحنا bad news لأنهم مجران سيدرونتا because every bad news was good news in a sense waxyaabo badan baad ka baranaysaa hadduu consciouskaaga ama wacyigaaga aad geengaraysatay aad leedahay af soomaali maxaa wacyi lagu dhahaa hadduu maankaaga joogo maankaaga I hope inuu kelmaddaas sax tahay hadduu maankaaga joogo aad ma aragtay qof waqtiga momentka la joogo waqtigan this second this moment aad noloshaada ku nooshahay uu wacyigaaga maankaaga u buuxo waxaan soo socda wax weyn kulama noqonaysa laakiin haddaad qayaali ku nooleed ma aragtay beentan weynta aan ku dhex jirna haddaad aaminsaneed waxa soo socda waa wax aad iyo aad kaaga naxin doona aniga horta tala waxa iga ah laba wax ilaahay isku xir ta kale waxaad bilowdaa inaad akhrisid quraan kariimka bilow inaad akhrisid haddaadan quraanka fahmaynin af soomaali turjumaan raadso af soomaali turjumaan quraanka raadso because quraanka waxyaabo badan ayaad ka baranaysaa markay musiibo ku soo food yeeshato aniga sanadkii markuu ahaa 2016 dowladda Mareykanka ayaa aad iigu xadgudubtay waxay geliyeen microchip sida iigu tababartaan because waxay iga heleen wax aan bini'aadanka intooda badan ay lahayn immune systemkayga wuxuu yahay super immune system waxay yiraahdaan jiro iima timaado alxamdulilah ilaahay iga kaafteemay caafimaad buuxa isiiya oo qeyrul caadi ah ta kale waxaan ku jiray activism politics kan dhex galay dad badanna already ciilay ii qabeen weliba qaasatan kuwa conservative-ka ah iyo kuwa liberalka kuwa support gareeya naagtan Hillary Clinton ay ka mid yihiin qaar badan oo kuwan sahyooniga ah oo koofiyad yarta ah ayagaana u taliya Mareykan ayagaa wax walba gacantooda ay ku jirtaa maanta Mareykan fowdadan hadda soo socotaan ka hadlaayana ayagaa soo orkaskad gareeya ayagaa soo diyaariya waa wax muddo soo socotay marka beentii ayaad ka shifmatay dad badan markii beentii ay ogaadeenoo internetka lagu soo bandhigay beentu ay sheegi jireen hadda banaanka waxay u soo bixinayaan wejigooda runta ahaa because ciidan koofiyad yarta ah hadafkooda Mareykan ma aha hadafkooda waa wadankan dadkan Falastiiniyiinta ka xoogeen magaciisa inaan sheego ma doonayo wadankaas ayaa in muddo ah Mareykan oo dhan ay u shaqeynaysay dagaaladii la soo galay oo dhan September 11 wixii ka dambeeyay wadankaas ayaa hadafka loo shaqeynay ayuu ahaa ayaga xitaa ka dambeeyay September 11 aniga waxyaabo badan baan dadka isku dayay inaan u sheego ilaahay mawhibad wuxuu ii siiyey markay horta aan u noqdo markay iga heleen waxaas waagan jaamacadda dhiganayay ma dhaweyn 2000 ayay ahayd iyo 2001 ilaa 2006 markaan jaamacadda dhameeyay Ohio State every week waxay Ohio State ii soo diri jirtay warqad ay dhahayaan plasmakaaga dhiigaaga donate garay lacag anaga diyaar kuula inaan ku siino se researchka ugu suubiyaan how come dadkan waa dad waxaa ku jira dad annaga noo tashtay oo in muddo ah annaga hadda dadkan markay isticmaarka Afrika ka baxeen kama bixin Afrika isticmaarka waxaa loo soo tashanayay in muddo ah sida loo gumaysan lahaa si kale laakiin loogu gumaysan lahaa si abad ah si aan weligeed ay ka bixeenin ayaa noola soo tashaday marka aniga I know Soomaalida jaajuus inay ka buuxaan ha isaga jiraan ha dhageystaan ha sheegaan I don't care because aniga already chip ayay geliyeen way ugu tababarteen dad badan xitaa ka qayb galay oo muslimiin iyo Soomaali iyo madow badan sida lay torture gareeyo loo xusuuqa Seattle oo leeyahay xadgudbay ilaahay dambi dhaafa iga dhigo laakiin waxaan idin leeyahay idinka
aniga waxaan waxyaabo uu ilaahay indhaha ii furay uu ilaahay indhaha shucaaca iiga qaado beenta aan ogaaday mar hore maankayga ii buuxsamay ayaan waxaan dareensanahay mas-uuliyad dhanka ilaahay iga saaray inaan dadka ma aragtay u digo. marka waa digniin soomaaliyay dhagaysta. magacayga waa yaasmiina aadan, magaalada Seattle aan ku noolahay. waxaan ahay qof Soomaali ah oo ka soo jeeda Soomaaliya. hadda Soomaalida inkastay kala baxeen, Somaliland aabaa ah, hooyana waa Soomaaliya, Muqdisho. aniga Soomaali waa ii siman tahay, giddigin waa ii simantihiin. kana nacab, kan jaajuuska nagu ah, kan ma aragtay qabyaalada ku mashquulka ah, kulligiin, because dadkan kuu tashaday waa u simantihiin abadan. idinma kala jecla. just useful idiot bay kuu arkaan haddaa dadka Soomaalida kale aad u jaajuusaysid. ma fahamti? marka iska dhagaysta. jaajuus basaasoo dhan wuu dhagaysanaya, waan ogahay. iska dhagayso, ugey sayidkaaga gaalka ah, usoo sheeg. waxaad tiraahdaa afkay kala furatay, maanta afkaan kala furtay. dhagayso. weligayba afkan uu ii kala furnaa, laakiin qofna ima dhagaysanaynin. waagi covidka waan u sheegay. islaan waxaan xasuustaa Soomaaliyad ah, dukaan Seattle ku yaalo Soomaaliya laxma xalaalka lagu gado. aan tagay, islaan aan u sheegay, waxaan dhahay hooyo, caruurtaada waxaan ay soo wadaan ha siinin, vaccine baa la soo wadaa. khaasatan gabdhaha vaccine-ka marka la siiyo DNA-gooda keliya ma bedelaye, caruurtay dhali doonaan in the future ayuu dhibaato weyn gaarsiin doonaa. ha siinin. waa wax laga soo shaqeeyey. waa cidan koofiyad yarka iyo kuwan eugenicska la yiraahda ka soo shaqeeyeen. waa wax la rabo in bini aadanka sida robot camal wax la xukumi karo laga dhigo. kuwaan la xukumi karinne la dili karo markay vaccinekaas isku shubaan, because annaga ilaahay baa na abuuray. ilaahay wuxuu noo abuuray si aan wax walba oga ma aragtay oga awood badan doono. wax walboo na soo hujuumo. jismigeena waa mucjiso. aniga biology-aan shahaadadeyda aan ku soo qaatay bachelorska Ohio State. regenerative wax every cell oo jirkaaga ku every cell ama every qaliya af Soomaali maxaa lagu yiraahdaa, cutubka ugu yar uu jirkaaga uu ka suubsan yahay. cutubkaas aniga af Soomaaliga waan iloobay. cutubka ugu yar dhan scientifically af Soomaaliga si fiican uguma aqaano. cutubka ugu yar oo jirkaaga ka suubsan yahay, xataa markii ma aragtay ka soo qaad for example beerkaaga waa cutubyo badanoo isku soo tagayoo beerka suubiye. cutub walba ugu yar waa wax nool. biyaa ku jira, waxay leeyihiin darbiyaa ku soo wareegsan oo ma aragtay cuntada waxa nafaqada leh u soo gudbiyo. waa mashiin camal. waa mucjiso siduu ilaahay jismigaaga u abuuray. marka cutubkaas ugu yar waxaa la yidhahdaa cell. marka cellka waxay leedahay waxa la yidhahda cell membrane oo ku soo wareegsan. waa derbi camal sidaa ugu soo wareegsan, laakiin derbi xiran ma aha. waa derbi albaaba leh oo askar taagan tahay. waxay soo gelinayaan keliya ay u soo ogolaanay inuu soo galo waxa faa'iidada cutubka ama cellka u leh. marka jirkaaga waxyaabaha to the cellular level ayay yiraahdaan. waxay barteen hadda scientifically, waxay barteen sida cellular level bini aadanka loola dagaali lahaa. marka dagaalkan soo socda ma aha dagaal banaanka ah. dagaalka soo socda waa dagaal medical mafia. kuwan dhakhaatiirta ayaa noqon doona askarta futureka. dhakhaatiir weligaa ma aragtay dadka intay daaweyn lahaayeen ugu talagalay in dadka lagu dilo ama dadka lagu isticmaarsado. marka cutubka ugu yaroo jirkaaga ka kooban ayaa waxay u suubiyeen waxa la yiraahdo nanoparticles nanotechnology. nanotechnologygaas waa sida hawaday kusii daynayaan. waa sida waxyaabo yar aad indhahaaga ku arki karin, laakiin hawada la socdo markaa neefsatid jirkaaga dhiiggaa sidaa ay ugu qabsadaan waa sida mashiin camal. sidaasuu jirka marka cutubkii sidaa ugu dhagayaa dhag. marka dhiigaaga xitaa cutubyo badan buu ka suubsan yahay cell membranekaas. markuu sidaa ugu dhago
wuxuu ku suubinayaa cutubkii wax la yidhaah wuu shoog garaynayaa, wuu register garaynayaa. Marka wuxuu u gudbinayaa signal, wuxuu u gudbinayaa mashiinka uu ka soo jeedo nanotechnologygaas, mashiinkii ayaga leeyihiin nanotechnologyga. Mashiinkaa markuu u gudbiyo, marka jirkaaga gudihiisa ayaa waxay u daawanayaan kaina inay sidaa ma aragtay inay camera kugu jirto camal. waxaa ka dambeeya hadda magaceedu waan sheegayaa, dalkan Israa'iil ayaa ka dambeysa. waxay leeyihiin wax la yidhaahdo biosurveillance technology. Biosurveillance technologyga waa waxa aniga laygu suubiyey markay jibka igeliyeen, maskaxda iga geliyeen jibka. laakiin maskaxda markay jibka iga geliyeen haddana meelo badanna way iga geliyeen Maraykan. waxa kale igu sii tababarteen waxay tahay, waxay igu suubiyeen dadkan waxyaabaha dadka bini'aadankoo dhan Maraykan ku nooloo dhan ayaa nanotechnologygaas jirkooda hadda ku jiraan. umaba baahna xitaa vaccine inay kugu suubiyaan hadda. Nanotechnology ayagoo microchipkaas igeliyey because kuma filna nanotechnologygaas, because qofka bini'aadanka hadduu conscious iyo hadduu maankaaga buuxo, aad ilaahay ku xiran tahay, aad meditation suubisid, aad meel fadhiisatid, adiga isla isbaratid waxaa tahay, ilaahayna aad isku soo xirtid, aad dikrika aad suubisid, indhaha kuu furmaayo, waxyaabo badan baad ogaanaysaa. qur-aanka ilaahay wuxuu noogu sheegay waxaa jiro dad la yidhaahdo ulil albaab. waa dad ilaahay gift siiyey, uu ilaahay wax tusay oo dadka inta badan ka qarsoon. marka dadkaa ma aha inay dad selective ay yihiin oo ilaahay doorto keliya. way jiraan dad saas ah. haddana qof waliba bini'aadan wuu noqon karaa ulil albaab hadduu wakti u qaato naftiisa, uu meel si degan u fadhiisto, asoo telefoon haysanin. teleefonkaaga guriga uga soo tag, gaariga ku soo xiro uga soo tag, meel natureka haddaad fadhiisatid saacad ama 2 saacadood everyday, aad dikri suubiso, aad keligaa isbarato waxaad tahay, adoo maskaxdaada fiirinaynin wadnahaaga iyo dareenkaaga iyo neefsashadaada u fiirsanaysid. maskaxda waa waxa ku waalaya, waa waxan ma aragtay dunida nagu soo jiida, waa shaydaanka. maskaxda shaydaankaa la socda. markaad digriga badsatid, maskaxdaada aad dhegaysanin oo neeftaada aad u fiirsatid, markaad neefsanaysid aad neeftaada u fiirsatid, aad dareemahaaga dareentid, waxaad ogaanaysaa waxyaabo badan aadan ogeyn. hadda waqtiday qaadataa, sida runta ah waqti dheer bay qaadataa. aniga waqti badan iguma qaadan, because aniga already ilaahayaa gift badan isii. marka aan kuu sheego, markay ay ogaadeen immune systemkeyga inuu normal ahayn, waxay igu suubiyeen, waxay microchipkan ii geliyeen, cadaadis badanay igu geliyeen, torture, suuq, gurigeyga shucaac, meel walba milatariga shucaac. markaan banaanka usoo baxo lay dhibaayo, lay daba socdo, ma aragtay dadka si waalan camal iska dhigayaan, dadka qof igu soo ordaayo, ma aragtay inuu jiiro camal doonayo, ama qof inuu arkaynin camal igu soo horbaxay, igu soo soconayo aniga, iyo qof qaylinaya intuu iga soo horbaxo raba inuu ila dagaala, for example. waxaasoo igu suubiyeen in muddo badan. aniga qof waxaan ahay adag, sida runta ah. ma fududa sida lay qalqaliyo, ma fududa, alxamdulilah, ma fududa. qof bisil baan ahay, waan soo bislaaday, mar horaan soo bislaaday, ma fahamti. marka way ku adkaatay inay taa kaliya dadkaas ee dhibaatada inay qalqiil igu subiyaan. waxay igu bilaabeen inay torture gareeyaan, siduu jirkeyga u furfurmado, ee waxaan ay geliyeen ay u fiiriyaan, ay ii kontroolaan, ee waxyaabo badan jirkeyga dhibaato u gaarsiiyaan. maanta heer waxay gaarsiiyeen kaadideyda aan cishan karin inta badan, mararka qaar badan. iskuma kaadinayo, laakiin waa inaan cararaa, aan musqusha aadaa, aan soo kaadiyaa. ayagaana ku taabgareeya jirkeyga kaadida, because dhagta bidixda ayay microwave iyo radiation iyo waxay yidhahdaan sound wave iiga garaaceen in muddo ah, siday ii qalqaliyaan, but also siday u ataagareeyaan nerve vagus la yidhahdo. nerfkaa wuxuu xukumaa
parasympatheticaaga waxay yidhaahdaan fight or flight ama carar ama dagaalam. qofka markii shoog la geliyo, jismigaaga shoog la geliyo, trauma lagu geliyo, waxaad noqonaysaa isdifaac. ayaa waa ilaahay wuxuu kugu abuuray, waa dabiicad bini aadanka ilaahay ku abuuray, waa ama inaad isdifaacdaa ama waa inaad carartaa. marka waxaa kugu suubinaya waxaas waa cortisol hormone la yirahdo, cortisol oo stresska ka yimaado. marka jirkaaga, but also insulinka ma aragta sokorta, because that's why aniga sokor waan joojiyay inaan cuno. cuntadeeda sokor kuma darsado, shaaxa sokor iguma darsado, xataa hilib ma cuno. in muddo ku dhow 14 sannadood hadda hilib maan cunin. marmaraan kalluun cunaa, marmar aan kalluun cunaa. laakiin inta badan fruits ayaan cunaa iyo vegetables oo aan shiidaa inta badan, because caloosheyda aad bay u ataaggareeyeen. shucaasay caloosha iiga garaacayeen, waxay rabaan inay siiyaan cancer oo caloosha iiga ridaan, because caloosha waa maskaxda ugu powerfulsan. maskaxdan bini'aadanka madaxa kugu jirta waxaa ka powerfulsan tan caloosha noogu jirta. ilaahay waxaasuu qur-aanka noogu yidhaahday sooma. soonka faa'iido badan baa ku jira. muxuu u yidhaahday ilaahay sooma? because soonka faa'iidada ku jirta waxay tahay jirkaaga intuu nadiifiyo, cuntada calooshaada ku jirta ka soo saaro, ayaa calooshii waxay u shaqaynaysaa dareenkii saxda ahaa. ilaahay wuxuu ku xiran yahay mar waliba wadnahaaga iyo calooshaada, because uunkaaga iyo uurkaaga, ma aragta soomaalida uunka iyo uurka waxay u yaqaanaan meesha caloosha ugu hooseysa. markaad wax ka dareento waa always wax sax ah. markuu wax aad dareento dhibaato kuu soo socoto, inta badan dumarkaa u badan. raggana way qabaan, laakiin inta badan ragga way ignore gareeyaan, because emotionska waa very important. emotionska haddaad naftaada barataa meel la fadhiisa, sidaa idiin sheegaya, waxyaabo badan baad ma aragtay aad ka badbaadi doontaa haddaad ogaatid emotionkaaga aad ka adkaato, because emotionka wuu ku qaadaya intuu sidaa cirka kula galo. wuxuu kuu qaadaya because maskaxdii baa ku qaadaysa. emotionka iyo maskaxda markay isku xirmaanna qofka runta ma fahmaayo, maankaaga ma buuxsana. laakiin markaad maskaxda u taliso, aad ogaato maskaxda hadalkeeda inuu yahay hadal shaydaan iyo waswaas iyo balaayo ay tahay, aad dhegaysanin, laakiin calooshaada uurkaaga dhegaysato. intaad uurkaaga dhegaysato, aad sidaa u dhegaysato. haddana ogaaw, dhagaheenna banaanka keliya maaha, dhagaha gudahana way jiraan. uurkaaga wuxuu leeyahay dhago, wadnahaaga dhagay leeyihiin, dhuuntaada xitaa dhagay leedahay. ma fahamte? marka aniga marka waxay igu suubiyeen, waxay tahay because maankayga wuu buuxsamay. runtaa mar hore ogaaday. waxay ii daba dhigteenba ee isku dayeen nolosheeda inay u baabi'iyaan. kuwan medical crime-kana waxay doonayeen inay igu tababartaan. marka labadii cadow baa meel bannaan iga helay oo igu soo xirtay meel. kuwanna way xusuuqaan, waxay ugu suubiyaan shucaac, because ciil ayay ii qabaan. beentoodii, corruptionkoodii baan kashifay. kuwan kalena way u baahnaayeen, because qofka marka la xusuuqo traumadaas, ma aragta, ayuu ka xal gaari karaan siday biologicalkayga gudahayga u bartaan. maxay u baranayaan? isweydii su-aasha, because adigaa laguu soo socdaa, soomaalidaa loo soo socdaa, afrikaankaa loo soo socdaa in lagu taliyo. jirkaaga hadhow dagaalka futureka ma aha dagaal banaankaoo bambe iyo banaanka ku qarxaysa. waa dagaal gudahaaga ah, waa dagaal internal ah. ma fahamtay? budgetka bentigan maraykanka difaaca waa in ka badan 800 oo bilyan. can you believe that? 800. intaas marka 3 meel loo qaybiyo, 1 meel research ayay ku suubiyaan. qaarka daarba la yiraahdo maxay ugu suubiyaan researchka? because waxay doonayaan bini'aadanka inay xukumaan. telefoonkan xataa gacanta aad ku haysata waa military, waa maskax socota, maskaxdaada ka sii weyn, because waxaa ku xiran AI. laakiin adiga wax kaa awood badan ma jiro haddaa maankaaga uu buuxo. xataa AI-ga waa ka awood badan tahay, taas ogaaw. marka soomaaliya waxaa idinla talin lahaa
sharcigiina haysta beentan lagu nool yahay mar dhow shucaaca laga qaadaya foolxumo aad u weyn baad arki doontaan aad